mudane madaxweyne anigoo ku hadlaya magaca missionka Somaliland ee Mareykan iyo waliba magaca bulshada Somaliland ee Mareykan degan oo ay ka mid yihiin bahda abaarso waxaan kugu mahadnaqaynaa sida milgaha qiimaha iyo hakasho la'aanta leh ee aad nooga ajiibtay inaad farxadda ardaydan soo qalin jabisay la wadaagto una tusto hanka iyo himilada dalku u hayo. We wanted an opportunity for our the alumni graduating from these universities all over the world to be able to be thanked by their own country, men and women. And most of all, I just want to say thank you that the president of Somaliland, not just coming to thank you now, the fact that the president of Somaliland has done many events with Abarso students. He's come to Abarso. waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha sharafta leh waqtigiisa noo soo huray waayo tani anaga macluumaad weyn aad weyn bay noogu fadhidaa in aad maanta soo ka soo qayb gasho xafladda la noo qabanayo. We are grateful to Abarso Foundation, to Abarso management for what they have done. It's a beacon of improvement, of development for our country, and we value what they have done. I'm aware that the president has always been attaching great importance to Abarso, and he's participated or invited these students who are just graduated. إلهي هيدن قرب قلوهويو إلهي هيدن لقبتو شرف يوم مقعبة نوسو كردسين إهلكي يومتي أتكدلتين يدلكي يدلكي سوماليلاند remember إيغا بحب برتين سوماليلاند بحب برتين ددكا أتكتي مادين بحب برتين إلهي قرب قلنا قلوهويو you make me so proud. الله الرحمن الرحيم. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan ay ku graduate garoobayaan ardaydan sharafta leh ee virtualka ah marka aad iyo aad aadna waa ugu faraxsanahay waxaan aad u hambaliyeynayaa dhalinyarada maanta ka qalin jabinaysa jaamacadaha dhowr iyo 10 jaamacadood ee ku yaala dalka Mareykanka waxaan u malaynayaa kolle adna inoogu xoogaalsan iyo wasiirka arrimaha dibadda ilaa 60kii inaan dadka Somaliland helin fursadda maanta ay u helay jaamacadaha dalka Mareykanka tirada inta leeg intii ka horreysay qolada iyo kuwa iman doona u malayn maayo inay hore u heshay Somaliland fursadda kolka laga soo bilaabo 1960 intii aynu dowladnimada helay ilaa maanta waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa dhalinyarada aad iyo aad u yar tegay Mareykan la kulmay dhibaatada gabadhii imika rabisa ay sheegtay oo arday wal oo dal ajnabi tagaaba oo la kulmay waxaad aad u warsataan aadna oo kontamayadii markii dadka madow adoonsigu jiray dadka Yurub tagay ahaa waxyaalaha ay la kulmeen waxa la mid ah qolooyin ka mid ahay waqar yariga horeeyay oo dalka Ruushka madowba arag midowga Soviet dad madowba arag dadku ama ay ka carrayaan ama ay yaabayaan ama ay qaar qoreen ma ku taabanaa inuu ka raaciyeen kara marka dhibaatooyinkaas oo dareemayno oo waliba kali ku ahaydeen waxaan kala xatigeysiyaan idinka ku idinka horeeyay iyo kuwa dambaba aad iyo aad baan hambalyeeyaa aad baan u faraxsanahay mahadnaqa iyo farxadda iyo hambalyeeda waxaan aad ugu mahadnaqayaa Jonathan iyo dadkii la shaqeynayay waxaan aad ugu mahadnaqayaa on behalf anoo ka wakiila qaranka Somaliland oo dhan dadkii hawshaa noo qabtay ee ardayda wax u baray xaaladda adag qof kasta oo ka qayb qaatay aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa waxaan u sheegaynaa Jonathan iyo dadka la shaqeeya iyo ciddii wax u qabata iskuulka Abarso Tech
iyo jaamacadda kale imika ay ka fureen ballaygacaas iyo iskuullada imika ay ka furi doonaan magaalooyinka elementariga ama iskuullada hoose waxaan u ballan qaadaynaa wax kasta oo tamarteeda inaan la garab taagannahay taana waan ballan qaadaynaa qaran ahaan guud ahaan waa ta ugu weyn aan qaban karo mar labaad baan u mahadnaqayaa ciddii iskuulka abaarso wax ku tartay iyo jaamacadda iminkuu yahay meel kastoo joogaa iyo cid kastoo yihiin waxaan kusoo gabagabeynayaa dhallinyarada allah idin barkeeyo waa farxad weyn ogaada dalkiina sidaa hore ugu ogeedeen ogaada waalidkiin xafladana waxaano imid oo horseed ka ahay aniga adna wasiirada inaad ogaataan inaanu idiin dhiibayno xilwareejintii dalka birinta qabanaya ee halkaan fadhina imanaya inaad tihiin ayaanu halkan u nim ma aha inaan farxaddeena qaybsane mas-uuliyaddii dalkaanu idiin sii wareejin idinkay daadina waa xil weyn waa yarartii maanta laakiin waa xil weyn shay dhow bid hore shay dhow ayuu kaasi sugayaa insha allah marka timaadeenna diyaar baan ahaa waa is arkaynaa idinkuna taa ku soo talagalaa maanta noqon maysa un inaynu halkan iska aragno insha allah waan jarki doonaa wasiirka tacliinta iyo wasiiradii ka horreeya tacliinta iyo ciddii hawsha gasho waa mahadnaqaya aadna oo icon iminka inoo taagana dalkana wax badan u qabatay una taagan kartidii awoodda hablaha soomaaliyeed muddo 6 sano ka badan ilaahay cimriga caafimaadka waxa u dheereeyo dalkeeduna waxay qabatay waa ogyahay annaguna waa mahadnaqaynaa aadna ayaa waxay ka shaqaysaa siyaasadda diblomaasiyadda tacliinta caafimaadka nabadaynta arrimaha haweenka waa 10 qof oo isku jira aad iyo aad baan ugu hadlaya insha allah jaaska sahli doonta aad iyo aad baan mahadsantihiin